Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo kala socotaan warbaahinta Cali Media anigoo Cali Rashid Maxamed ayaa idin la socodsiinaya. barnaamijkeena maanta waxaad ku maqli doontaan wasaaradda cadaaladda Mareykanka oo xirtay basaas ajnabiga oo wasaaraddaasi muddo u shaqeynayay. barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ninkaas ajnabiga ee Mareykanku ay xireen iyo waddanka uu shaqeynayay. Sidee ayuu wasaaradda cadaaladda Mareykanka ku soo galay ninkaas ajnabiga ee la tilmaamay inuu basaaska ah? qodobadaas ayaa daawadayaal barnaamijkeena kaga bogan doontaan. daawada fiidiyoga noo share garee si dad badan aan u gaarno YouTube kana subscribe noo saar. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in xabsiga dhigeen nin ajnabi ah oo la tilmaamay inuu ahaa basaas wasaaraddaasi u shaqeynayay in muddo ah. dowladda Mareykanka oo ka mid ah dowladaha adduunka sirdoon ahaan ugu xoogan in badan aad uga feejignaatay in xogaheeda loo gudbiyo dowladaha kale ee caalamka ayaa markaan waxaa suurta gashay waaxdeeda cadaaladda in muddo uu ka tirsanaado nin ajnabi sirdoon u ahaa dowlad kale oo ka mid ah dowladaha caalamka. ninkan lagu magacaabo Abraham Taglolema ayaa la sheegay inuu ahaa nin haysta dhalasho ajnabi ah sidoo kalena haysta dhalashada waddanka Mareykanka, waxaana waaxda cadaaladda Mareykanka uu kula shaqeynayay qandaraasle heshiis la galay wasaaradda kana shaqeynaya qaybta IT-da ee waaxda cadaaladda Mareykanka. ninkan ayaa lagu eedeeyay inuu la baxay xogo badan oo sirdoon iyo kuwo cilmi baaris oo wasaaradda u kaydsanaa, taasoo la sheegay inuu waddan kaleeto u gudbiyay. ninkan xabsiga la dhigay oo xogihiisa si rasmi ah loo faahfaahin maadaama eedaysana uu yahay ayaa wasaaradda cadaaladda waxay ku sheegtay in muddadii u dhaxaysay 19 Diseembar 2022 ilaa 7 Agost ee sanadkan 2023 uu koobiyeeyay isla markaana meel kale uu ku baastigareeyay ama u gudbiyay warbixinno badan oo warbixinno sirdoon ah, kuwaas ay ku jiraan warbixinno ay leedahay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka, waxaana la sheegay inay ka mid yihiin 85 warbixin oo warbixinno sirdoon ah. warbixinada ninkan gudbiyay ayaa lagu sheegay inay yihiin warbixinno sir ah oo aan loogu talagelin in cid kaleeto ay u suurta gasho inay hesho. 48 warbixin oo ka mid ah warbixinada ninkan lagu tilmaamay inuu gudbiyay ayaa ah warbixinno dembiyo culus ay ka dhalan karaan, si qaasana dowladda Mareykanka waaxdeeda cadaaladda ay ahayd warbixinno si sirdoon ah ugu kaydsanaa. ninkan lagu magacaabo Abraham Taglolema ayaa wasaaradda cadaaladda ama waaxda cadaaladda Mareykanku ay sheegtay in xogahaasi u gudbin jiray waddan aysan magacaabin oo ka mid ah wadamada caalamka, waddankaasi oo la sheegay inuu yahay waddankuu ka soo jeedo. inkastoo si rasmi ah dowladda Mareykanka gaar ahaan waaxda cadaaladda oo ninkan xabsiga dhigtay aanay sheegin halka uu rasmiyan ka soo jeedo iyo waddanka uu yahay waddankuu u shaqeynayay, haddana in badan oo ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa xogo badan ka aruuriyay, waxayna sheegeen in waddanka uu ninkan ka soo jeedo uu yahay dalka Ethiopia, isla markaana uu xogahaasi isla waddanka uu asagu ka soo jeeday Ethiopia uu gudbin jiray. qaabka xogaha uu ku qaatay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen xogo dukumiintiyo ah, qaarkood CD ku jiray, qaarkood uu kala degay meel gaar ah oo wasaaraddu ay xogahaasi ku kaydisay. sida uu fursadda ku helay ninkan la tilmaamay inuu ahaa sirdoonka waddanka shisheeye ee Mareykanka waaxda cadaaladda xogaha badan ka xaday ayaa ah in asagu uu ahaa shaqaale ka tirsan wasaaraddaasi ama waaxda cadaaladda Mareykanka. inkastoo uu qandaraasle ahaa, haddana qaybta IT-da ayuu ka shaqeynayay, waana sababta keentay inuu xog badan oo qarsoonaa uu asagu jaanis u helo inuu xogtaasi qaato. August ilaa July oo 2 bilood oo isku xiga ayaa wasaaraddu sheegtay inuu ninkaasi la degay 10 xogood ka badan, asagoo dhowr mar ku soo laabtay mid walba inuu xogo ka dejiyo barta sirta ah ee wasaaraddu ay leedahay. sidoo kale wasaaradda cadaaladdu waxay sheegtay ninkan waddanka aan la magacaabin uu ka soo jeeday, laakiin warbaahinta kale ogaadeen inuu yahay waddanka Ethiopia, inuu safar u aaday. inta safarka uu ku jiray iyo safarkii kadibna uu la degay in ka badan 100 dukumiinti oo ay leedahay waaxdaasi cadaaladda, taas oo la aaminsan yahay in waddanka uu ka soo jeedo uu gudbiyay. waxaa waaxda cadaaladdu intaasi ay ku dartay in ninkan lagu bixiyay lacag ka badan $100,000 si loo suurtageliyo in xogihii uu kala baxay wasaaradda looga iibsado in dib uu u soo celiyo. hase haatee xogaha ayaa la sheegay in badankooda uu waddankii ka soo jeeday ama waddankuu sirdoonka u ahaa uu gacangeliyey. ninkan waa 50 jir wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ka tirsanaa ayaa la sheegay in hadda uu xabsiga ku jiro, waxaana lagu soo oogi doonaa dhowr dacwadood oo ay ka mid tahay in sira qaranka uu leeyahay uu waddan kale u gudbiyey. dacwooyinka la xusay in lagu soo oogi karo ayaa qaarkood waxaa la sheegay inay ka dhalan karaan xukunno dil u dhigma. ma ahan markii ugu horreysay oo Mareykanka xogo uu leeyahay qaab sirdoon iyo qaab kaleba loogala baxo. daawadayaal intaas ayaan ku saafmeeraynaa qodobkaan uga hadlaynay ninka sirdoonka ajnabiga ahaa ee waaxda cadaaladda Mareykanka muddada badan u soo shaqeynaya ee gacanta lagu dhigay. intaan warbixintan oo kale ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.